السلام عليكم ورحمة الله دمانتين أمة الصوماليات نامستا أيا لي هاي سودا وادا فضلا سبسكرايبكا لايكتا إيو كومنكا إيو شيرتا انتوبا وحان كسوغا يا عيد كلاماها وصومالي محمد فضلا انت هايقو عاوية قصة أن مانتا إذن كوهايو halkan waa qiso aad iyo aad u la yaab leh haddii aad tahay dadka aanay xiisaynin qisooyinka la yaab kale iyo waxyaabaha naxdinta waxaan ka codsanayaa fadlan inaad daawato waqti ku habboon waqtiyada qaar aan inoo bilaabo qisadani waxay ku odhanaysaa gabadh la odhan jiray Dorothy Jane Scott oo ku noolayd magaalada California ee waddanka Mareykanka waqtigu markuu ahaa 1980 ayaa waxaa dhacday qiso aad iyo aad u la yaab leh gabadhani waxay haysatay wiil yar oo aabihii ay kala tageen wiilkeeda waa 4 jir waxa ay nolosheeda dhan iyo shaqadeeda ay ka fikiri jirtay wax kale ma aha waa wiilkeeda yar iyo hooyadeed iyada dhashay oo kula noolayd guriga maxaa dhacay Dorothy Jane Scott maalin maalmaha kamida ayaa waxay samaysay sidii caadada ahayd waxay tagtay shaqadeedii dabcan iyada waxay ka shaqeyn jirtay meelaha soo saara ama shirkadaha soo saara dharka oo Allahumma salli ala Muhammad aan noqon karo yani dharka waxyaabaha guryaha lagu qurxiyo ayay kamid ahayd ama ay ka shaqeyn jirtay gabadhaas waqtigeeda ugu badan waxay ku qaadan jirtay inay waqtiga guriga ay joogto iyo shaqadeeda inta wixii ka dambeeyay maalin maalmaha kamida ayaa waxa soo wacay telefoon number ayaa soo dhacay telefoonkii way qabatay qofkii la hadlayay oo nin ah ayaa wuxuu ku wargeliyay in uu yahay qof jecel haddii uu waayana uu u samayn karo wax kasta ama nolosheeda goyn karo ama ilmaheeda yar uu ka aftoobi karo dabcan tawatur badan cabsi badan ayaa galay gabadhe waxa dhacday in ay isku daydo sidii ay nafteeda u difaaci dabcan qof aanad garanayn oo ku soo wacay oo telefoon intuu ka soo garaacay ka codsaday inuu ku jecel yahay aanad garanayn in cabsi badan ku abuur dabcan waa dareemi kartaa waxa dhacday in gabadhi ay tagtay meelaha lagu barto yani si uu qofkii naftiisa u difaaco macnaha waxaan oran karnaa goobaha fighting ee fudfudud ee qofku inuu naftiisa difaaci karayo ala aqal ayay baratay halkii bay ka baratay waqti badan bay ku jirtay iyadoo ay telefoonkii uu ninkii soo garaacayo iyo message-yadu soo dirayaan ay yihiin qaar handadaada oo cabsi badan aad u geliyay maalin maalmaha kamida ayaa hooyadeed waxay ka codsatay in ay ka qabato telefoonka qofka si ay u eegto inay codkan garanayso Dorothy Jane Scott iyadoo qudheedu codkan waa qof ay garanayso macnaha codkan way garanaysaa laakiin waxaan soo saareen shakhsiyadda qofka codkan iskale hooyadeed markii ay dhageysiisay hooyadeed sidoo kale waxa ay sheegtay inay garanayso codkan laakiin aanay soo saari karin qofka codkan iskale inta ka bacday Dorothy Jane Scott waxa ay dalbatay ama ay jeclaysatay in ay u sheegto askarta ama ay gaarsiiso askarta arrinkan laakiin waxa uga cabsatay inuu qofku guriga ugu iman karo wuxuu doono ku sameyn karo dili karo ama uu meel ka eegan karo ama uu ilmaheeda yar aftoobi karto taas aa keentay in ay wargelin weydo saldhig boolis ama askarta arrimaha noocana shaqada ku leh dabcan marka laga hadlayo Dorothy Jane Scott waxay ahayd gabadh aad iyo daacad oo ah shaqadeeda iyo gurigeeda u dhaxaysa dabcan markii la wareystay dadkii ay la shaqeyn jirtay iyo reerkoodii iyo family-gii iyo dadkii jaarka waxay sheegeen in aan ahayn gabadh yani aqliyan waxay ka cabanaysaa aanay jirin dad psychiatry ba jiro maskaxiyana waxay ka cabanaysaa aanay jirin Allahumma salli ala Muhammad inay tahay qof dhowrsoon oo ay ahayn dumarkan yani khamriga caba baararka taga baashaala dad noocaasa inaanay ahayn
taana waxaa lagu xaqiijiyey taxqiiqii ay soo saareen muxuu ahaaye nimanka booliska. in yar kabacdi waxaa kusoo dhacay telefoonkaas oo ahaa wiil ay saaxiib ahaayeen oo ay ka wada shaqayn jireen goobta shaqada, kaasoo ku wargeliyey inay aad iyo aad u xanuunsanayo. Daphne Jane Scott iyadoo aad u degdegsan ayay hooyadeed ku wargelisay inay ilmaha yar ilaaliso si ay uga soo noqoto dhakhtarka, kaas oo saaxiibkeed oo aad u xanuunsanaya oo meesha dhakhtarka ayaalo. wax yar ka bacdi waxay soo qaadatay gaadhigeedii si ay u timaado dhakhtarkii markii ay timi waxay ugu timi saaxiibkeed, way dejisay, habi bay ka dhigtay, waqti bay la qaadatay. laakiin inta waqtiga ay dhakhtarka joogtay waxaa ku soo dhacayay telefoon aad iyo aad marka ay qabanayso ama ay doonayso inay la hadasho uu ahaa mid ay dibadda ugala baxdo qolka uu saaxiibkeed xanuunsanaya uu yaalay. dabcan wiilkani wuu dareemay xaaladda haysata saaxiibadeed, isagoo arkay macnaha warwarka ka muuqda wejigeeda iyo muxuu ahaayey qaabka ay telefoonka u qabanaysa ee dibadda ula baxayso, waayo waxay ahaayeen dad aad iyo aad isku sir ah. intaa waxaa ka dambeeyay waxa uu doctoorkii u yimi wiilkii xanuunsanayay ee dhakhtarka joogay, waxa uu wargeliyey inuu waqti yar ka bacdi bixi doono, gurigiisana aadi karo, wax uu dhakhtarka dhexdiisa uga baahanyayna aanay jirin, waxa uu u baahanyayna uu kala soo xidhiiri karo dhakhtarka ama doctoorka. in yar ka bacdi Daphne Jane Scott ayaa waxa ay soo gashay qolkii uu wiilku ku xanuunsanayay, isagoo iyadoo weydiinaysa waxa uu doctoorku ku yidhi. wiilkii ayaa dejiyey, waxaan uu sheegay inuu waqti yar ka baxayo meesha. in yar ka bacdi waxay tiri waxaan kuu soo diyaarinayaa gaadhiga si aan u wada baxno. markii wiilkii iyo dadkii faamiligiisa ee la socday ay ka soo baxeen dhakhtarkii ayaa waxay arkeen gaadhigii Daphne Jane Scott oo si xawaaro ah xaggooda ugu soo socda. naxdin iyo warwar ayaa qaaday. dabcan way isweydiiyeen waa maxay sababta keentay Daphne Jane Scott in ay gaadhiga sidan u wado, waayo waxay uga barteen maaha. waxay ahayd qof mas-uula oo dhowrsoon oo aan wax warwara ama dhib ah aan xagga ama wadida gaadhiga aan sidan ku ahayn. dabcan may sii eegi karayn ama muu u muuqanin gaadhiga cidda ku dhex jirta. gaadhigii isagoo xawli saa'ida ku socda ayaa waxa uu hormaray wiilkii dhakhtarka ka soo baxayey iyo dadkii la socday oo uu xaggooda u soo cararay. kabacdi markii dambena uu si toosa oo xawliya xagga hore ee waddada uu maray. dabcan wiilkii aad bay u warwareen, waxay moodeen inay xaalad degdegi ku timi, waxay moodeen in Daphne Jane Scott ama xaalad kaloo wiilkeeda loo soo sheegay. dabcan waxa ay sameeyeen in ay garaacaan taleefankii guriga. waxaa ka qabatay hooyadood iyadoo ku wargelinaysa ama ay u sheegayaan in gabadhoodii ay aad uga warwaryan yihiin xaaladda iyo sida ay gaadhiga u waday, markaa iyada qudhoodu ay daba gasho xaaladdu siday tahay. waqti badan, saacado badan, maalin dhan ayaa la waayey xaalkeeda iyo sida uu yahay. Daphne Jane Scott may ahayn qof looga bartay xaaladaha noocana, taas oo warwar iyo dhibaato ku keentay xaaladda meesha ka jirta. gabadhii waxaa la la'yahay muddo hal maalina. waxa dhacday inay wargelisay hooyadeed askartu waxa ay baadi dooneen qofka iyo xaalkiisa iyo in la afduubtay. howlahaas ayay sidii caadadooda ahayd shaqadoodii galeen. 3 cisho ka bacdi waxaa dhacday in la helay saacaddii ay xidhnayd iyo mayd lafo
oo gubtay oo macnaha dab lagu qabtay oo qof gubtay intuu gubtay ay soo hadheen lafihiisii oo aad iyo aad u naxdin badan. askartii iyo ciidankii dambi baarayaasha ahaa waxa ay ku noqotay arrin aad iyo aad u la yaab leh. saacadda ay ka dul heleen meydka ama muxuu ahaayey lafaha ruuxan ay heleen askartu ayaa markii ay tuseen Daphne Scott hooyadeed in ay u sheegtay inay tahay gabadheedii. ta arrinka aadka u lasii la yaab kale wax weeya gaadhigii ay sida xawaaraha ula soo carartay oo la odhan karo in la dilay ayaa waxaa la arkay isaga oo ololaya oo muxuu ahaayey dab la qabadsiiya. wax yar ka bacdi hooyadeed waxay timi goobtii lagu arkay dhacdada, waxayna sheegtay inuu gaadhigeedii ahaa. waxaa kaloo sheegtay in saacaddu ay ahayd saacaddii ay aadka u jecleed, waayo dabcan dadku saacadaha ay kala xidhaan ay kala jecel yihiin. adduunku waa kala gaar, macnaha dadka qaar baa iska wada xidha saacadda, laakiin dadka qaar aad u xiiseeya waxay jiraan nooc gaar ay xidhaan. markaa gabadhii islaantii dhashay gabadhu waxay xasuusatay inay ahayd saacaddii inanteeda. sidaasna waxaa lagu arkay xaaladda ku dhacday gabadhii Daphne Jane Scott. wax yar ka bacdi ama maalmo yar ka bacdi waxaa telefoonka soo qaraacay isla shaqsigii, isagoo ay ka qabatay hooyadeed teleefonka, taas oo uu u sheegay in Daphne Jane Scott ay isagu gacantiisa uu ku dilay lafaheedii iyo jirkeediina uu dab ku qabadsiiyey. waxaan u malaynayaa dhaxdana naxdin idinku abuuri doonto, laakiin waxaan jecelahay in dadka qaar qalbigooda uu sidan uu u adkaado oo aanay dhacdooyinka qaar haddaad akhrido macnaha qalbigaagu inuu ku yara adkaado ayaa laga yaabaa. waxaan idin leeyahay like-ta, subscribe-ta, comment-ka, share-ta, intaba waxaan ka sugayaa cid kale maaha, waa Soomaali Maxamed, waa jokerkii iyo midoobayo idin leh. waa idin salaamay mar koobaad, mar labaad iyo mar saddexaadba. See you again.